فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر. هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر. إن شاء الله تعالى محاضرة اللباد محاضرة مقعدة حول طريق إلى الجنة دورة مقعدة أي لما قعدتها وحينو قلدون إن شاء الله تعالى الشيخ مهاب ظاهر فليتفضل شيخنا مشكورا أجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام الشافع المشفع في عرصات يوم المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى يوم التناد. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الطريق إلى الجنة. ولا ليال إلهي مركا وأبوري مخلوقاتك يا ابن آدمك waxa uu soo diray rususha waxa uu la soo dhiibay kutub waxa lagu cadeeyay kutubta binaadamku waxay u baahan yihiin wixii wanaag oo dhan ayaa lagu tusay waxa kutubta ku dhex jira ilaahay rususha uu la soo diray waxa alla wixii shar ah oo binaadamka dhib u keenaya oo dhan baa lagu cadeeyay. ilaahay nolosha markuu sidaa u qadaray ayuu haddana wuxuu xugmiyey nolosha dhammaad inay yeelato. dhammaadka kadib ma sidaasaa la isaga tegayaa? maya. qofku markuu geeriyoodo dadku ay dhintaan waxaa jira maalin aad qur-aanka looga hadlay yowm almaxshar. waa maalinta dadka la kulminayo. haddaba dadkii oo dhan markii la isku keeno cadaaladdu waxay keenaysaa dadka kii wanaag sameeyeyna wanaag in lagu abaalmariyo, kii aan wanaag samaynna wuxuu mutaystay in lagu abaalmariyo. sidaa darteed ayaa ilaahay janno iyo naar sameeyey. walaalayaal, waxaynu ka taaban doonaa kelmaddan 6 arrimood ayaynu ka taaban doonaa. arrinka ugu horeeya waxaynu ka hadli doonaa tacriifu ljanna luqatan wa sharcan. janno maxaa la yidhahdaa luqadda carabiga? shareecaduse janno maxay u taqaanaa? laba, waxaynu ka hadli doonaa wasfu ljanna, dariiqan aynu rabno jannada inaynu u gaarno, iyo dariiqa aynu ishaari doonna aynu dhihi doonna jannada ayuu ku geynayaa. inta aan dariiqa iyo waddooyinka la sheegin ayaa waxaa habboon waxa loo socday maxay yihiin. qofku waxa uu u shaqaynayo ama uu mool ka dhiganayo iyo hadaf hadduusan garanayn qiimaha uu leeyahay dadaal badan iyo juhdi badan ku bixin maayo. sidaa darteed waxaynu nuqdada labaad taaban doonaa wasful janna, jannada ilaahay uu noo sheegay tilmaamaheed iyo waxay tahay.
nuqdada saddexaad waxaynu taaban doonaa dadka raba jannada ama wadooyinka doonaya in loo iftiimiyo jannada gaarsiinayo qofka dadkaasu waayo man hum ahluljanna war jannada yaa ilaahay ugu talagalay oo u diyaariyay nuqdada afaraad waxaynu taaban doonaa wasaa'ilu lmuciinati cala ariiq dariiqa iyo wadooyinka jannada lagu gaaro asbaabo iyo arrimo keenaya oo u kaalmeynaya qofkii dariiqa inuu lugta saaro arrinka shanaad الطريق إلى الجنة ودوين كلفت قولي بان إشارينا ست تفصيل أرنك نوضا بيو قصص من سلك هذا الطريق سي أدوهشي محان قولها شحن موبيلكو مركو باتري وكذا معه ولا جاجة قرية سي أدوهشي مركا أود إيا محان قولها وحوري كوسي أرنك أسعتي إيا هدف كالي كوو كالمي waxaynu ishaari doonaa qisooyin dadka dariiqa raacay ayay noloshoodii ku saabsan iyo say ugu dadaali jireen dariiqa iyo wadooyinka jannada walaalayaal nuqdada noogu horeysa jannada luqada carabiga waxaa la yihahdaa albustaan alcadiim alladii yasturu maa bidaakhilihi beerta aadka u weyn ee daboolaysa waxa gudaheeda ku jira ayaa janno la yihahdaa وهي مشتقة من مادة جنة لغة العربية هكذا لغا كان بمعنى الستر وانا أستر جنة وشيء دبورنا أستروي ولذلك سمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار جن واحد جن لو بحي أرجع أيام قبل بين آدم لما أركي سيدا الجن لو بحي ووحق الصوت كما سمي الجنين جنينا لاستتاره في بطن أمه سيدا إلمها يركا علوش كجرب الجنين لو يقال أيا متقنا وحا أسترون الجنين لو يهذا معايا إلمها علوش ويضد بكجرب حق شرعه وحا الوئري بحيه أو جنة لي هذا فإنها دار الخلود والكرامة التي أعد الله عز وجل لعباده جنة وحا ويشرعه وحا أتقانا وقري إيدار لغو واريو لغونا كرامين أو لغو شرفيو الدوم هذا إلهي إساقه ميهي كرامة الأقوة الجنة القدية هذا لغيها لنا وحوي النظر إلى وجه رب البريات ربي أدعابو ليسي إن أدعكت كرامك وانتهى لما أرى وفيها من النعيم المقيم الأبدي ما لا عين رأت جنة وحا قصوغا نعموين دائما وولغد أنقوين إلو ميسن على الجنة وحا قجرة ولا أذن سمعت لما ميسن مقال ولا خطر على قلب بشر قلب بني آدم كمصر بعين جنة وحا قجرة هي حقيقية وحا قرآن كالوشاري الولاية البرتقال الرومان وحاسا كجر الولاية ووح مقع إسوافقين لكن ضدن مذب سوى بوكل دوين وحاوح لو الماما يا رب إنه قلت الماما يا جنة السام قد دلنا وحي نقرنين هدي إلهي قلت الماما لها جنة وح أن نقرني قول لي لا وحاسا كجر وحاوي وحا نقرني إن وح لغشره وح غريب وهو فوق بين غنين لكن وحا أذوق أدونك أدكو أركت وحيالها أدقي ميسي إما للذات كأوه بن هذا يكون راحيستان أيها جنة اللي وشيها لكن بين السماء والأرض أي يسكجر حق قيمها أي كواليتي جنة وحا كجرة وحا سا كجرة أدونك مقع يسوافقين ما هنا شغيسكم على ولا لي إلهي وحير إساو كهل يا جنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نفي ما أغوحا لو قريه أو البغاتي جزاء بما كانوا يعملون ذاك شقيستي بلغو أبا المرمية جنة وحا كجر حقيق لذا إلهي أبوري أيها برنكا من هذا الروح السميه متقنا أي أيقو عرواء يقروح أي كوضان هذا لحقشي أيات كو إن الدران دريسة بقول كنا
faawaha kala duwan iyo kalarka kala duwan loo sameeyey ayaad ku darandaraysaa markaasaad leedahay adigoo yaaban daartaanu qurux badana dukaankaanu qurux badana shaygaanu cajiib badana bal ka waran rabbigaa waxa uu yidhi waxaani waa shay qurxan wuxuu yidhi ka war miyaa la koobi karaya wasfu ljanna dariiqa jannada aynu doonayno ilaahay ahlu jannaha naga dhige inna loo iftiimiyo intaan la gaarin waxaa ka horeysa war jannada miyaad garanaysaa qofku wuxuusan garanaynin haddayin wax dhib lana kama durko haddayin wax dheef lana hadduusan garanayn kuma durko waxa aad garanaysa hadday dhib leeyihiin laakiin aqoon aadan u lahayn dhibkooda waad ku durkaysaa maxaa yeelay soomaalida waxay tiraahdaa libaax waxaa neef ka ritaa nin aan garanayn kan garanaya inuu bahalkaanu bahal khatara halisa yahay oo qofkii u dhawaada oo dhibaataynayo waa ka durkaya marka walaalayaal waxaa muhiim ah jannada horta inaynu ka sheekayno bal nafteennu say u duusho oo maantay jannadaa iyo wanaaggeeda markaynu maqalno dadaalka aynu u badin markaasaa qofkuna dadaali karaa markuu shayga ogaado shayga qiimihiisa markaad ogaatid ayaa dadaal ku bixin karta dhismaha jannada rasuulkeena calayhi salaam wuxuu yidhi aljannatu binaauhaa labina min fida dhismaheedu waa fida fidadu midkan annagu aan garanayna ma aha waa mid ka qiimo badan walabinatun min dahabin dhismaheedu labina waxa weeye dhagaxa layskor saara soomaalida burkeetiga qaar u yaqaana bal ka waran dahab layskorkor saare weye jannadu guryaheedu waa dahab layskorkor saaray guri dhan oo dahaba wey wa malaatuha almisku ladfar ciideeda iyo caradeeda iyo meelaha lagu soconaya iyo dhulkeedu waa miski waa shay la udgoon kan ugu uduga badan wey rasuulka xadiis saxiixa oo bukhaariga ku sugan calayhi salaam ayaa waxaa rasuulka loo soo hadiyeeyey jaakad boqorada gaalada ah jaakad mid kamid ah usoo hadiyeeyey ilaah baa boqore raggii saxaabada ah jaakadan dhulkooda lagama aqoon aad bay u qurux badneed waxay bilaabeen inay taataabanayaan ay la yaabayin rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaam wallaahi buu yidhi qofka jannada ku jira suunka ama bahalka jeedalka la yihahda ee faras lagu garaaco meesha uu dhiganayo meeshaasaa ka qiimo badan buyo adduunka iyo wax ku jiro o dhan bal ka waran bahal yar oo suunka ama jeedalka yarkaa meesha la dhigayo boos yar oo jannada kamida ayaa waxay ka qiimo badan tahay adduunka iyo waxa ku jiro o dhan gabar ahlu jannada ah xuurulciinta kamid ah masarka ama madaxeeda waxay saaranayso ayaa adduunka iyo waxa ku jiro o dhan ka qiimo badan waa xadiis saxiixaysan ma wax la maqlay ama qalbiga kusoo dhici kara muxuu qiimo leeyahay gabdhuhu ama qofku waxa yar madaxiisa uu saaranay koofidhe ama waxa kala dumarka isa muxuu qiimo leeyahay bahalkaas koofi yaroo sidaa loo tuuro cimaamad yaroo sidaa loo sayriyo oo loo tuuro maxay qiimo leedahay waxa jannada ugu yar ee masarka ah ama koofi lamid ah waxay ka qiimo badantahay adduunkan nicmooyinkiisa kala duwan ilaahay u dhex dhigay isku wada keen waxaa ka qiimo badan shayga ka waran koofiyadihii iyo jannada koofiyadaheedii wixii lamidka ah hadday qiimaha leeyihin ka waran waxyaalihii kaloo lagu raaxaysanay sariiraheedii maxaan ku dhahaa barwaaqadeedii raashinkeedii rasuulku wuxuu yihi calayhi salaam man yadkulahaa jannada qofkii galo yancam waa nicmaysanaya laa yab-as ma hoogayo qallayl arki maayo abaar arki maayo wayaklud laa yamuut waa waarayaa kuma dhimanayo soo midna arag odaysa gudaheeda soo midna arag rag iyo dumar gaal iyo muslim la rucleynaya dabagaab baa ugu jira maxaa loo ordaya weligii inuusan dhiman buu rabaa wuxuu rabaa weligii inuu ahaado qof caafimaad qaba xagee laga arkayaa jannada lugta ugu horeysa markaad geshid 4 adduunka lagu waayey baa horta ka helaysaa ko dhalinyaro ahaanaysa waxaa kaa tegaya xanuun ma jiro weligaa mataqaana xanuunsan mayd weligaa geeri arki maysa weligaa faasta abayda iyo shaqo aad adduunka saad mataqaana noloshaada aad u kafaala qadi
iyadu waa qudays lagama shaqaysto shaqatii adduunka loo baahan yahay qofkii doonaya nolosha adduunka laga waayay hadda ha ku dadaala salaada iyo soonka iyo khayrka ha ku dadaala gaal iyo muslimba dabagaab baa la gashay waa la ordaya inaan dhiman baa la rabaa waa dhimanaysa qof noolaanaya lama arko way shaqal dibigu ha ku qoos qaateen wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld ruux kaa horreeyay rasuul allow waaritaan maanaan siin afa in mitta fahum lkhaaliduun adiga haddaan ku oofsan ma cid kalaan ka tegayna kullu nafsin daa'iqatu lmawt ama rucleh ama orod ama daawooyin kasta cun geerida waa dhadhaminaysa laakiin geerida maxaa ka dambeeya ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون walaalkayga walaashayda muslimka ahay jannada ee aan geeridu aysan jirin ee xanuunku aysan jirin waxba mataqaana adduunkana kaga fasahaadi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi jannadu waxay leedahay albaabo 8 albaab bay leedahay jannadu albaab waxaa ka mida la yidhahda rayaan laa yadkhuluhu ila asaa'imuun jannada lagaga sheekaynayo jannada aad doonaysid dariiqeeda in lagu iftiimiyo waa inaad wax ka ogaataa albaabkaa waxaa ka gelaya dadkii soomi jiray aawa gabdhihii mataqaanaa adduunka ku soomi jiray aawa gabadhii dadaali jirtay aawa hooyadii dadaali jirtay dadkoos afuran bay iyadu soo maray allahu akbar waa gabadhee gabadha iyadoo halkaan degan odaysa oo soomaysa soonkii waajibka hadday ka tagtay sunno soomaysa oo laga yaabo saacada la soomayay aada inay u badan yihin 16 saacado waxaa laga yaabaa qoraxda inay dhacayso markay saacadu tahay 10 fiidnimo meeqa saacadood bay soomay ha bishaaraysteen dadka sidaa rabbigood ugu xiran oo garanaya mataqaanaa meesha u socda waxaa la yidhi rasuulku wuxuu yidhi qofkii wanaag doonaya ama safar doonaya gelinka dambe habeenkii ayuu guureeya qoraxdu intaysan ku soo bixin qofkii doonaya jannadaasna waa inuu guureeya dadka hurda waa inaad taaganta dadkoo afuran waa inaad soomanta dadkuu qosnayo waa inaad ilmaynaysaa dadkoo ciyaaraya waa inaad khushuucsan tahay gabdhahoo qaawan waa inaad xijaaban tahay alaa ina silcata allahi aljanna alaa ina silcata allahi agaali ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisu waa haali qof aan haali ahayna ma u helay qof haali ah oo nadiifa ayaa jannadaa helay jannadu darajaad bay leedahay dadku kale nasiib badan dadku kale khayr badan gabdhaha ilaahay khayrka ku hanuuniya meel alla meeshay taagan tahay waxa weeye salaadeeda iyo soonkeeda iyo xijaabkeeda iyo dhowrsanaanteeda iyo qur-aankeeda saasay ugu dhegantay dadku kale nasiib badan qaarna kamaba warqabaanba mataqaana meel loo socdanse hadday joogto waa shaydaan hadday maka joogto waa shaydaan hadday soomaaliya joogto waa jin hadday qofkaasna barakadii baa ku yar dadku kale nasiib badan gabadhaanune ama hooyadaane had iyo goor ilaah bay ku xiranta soo ma ogid maxaa kaa dhigay mujtamaca meesha ugu hooseysa maxaa kaa dhigay saynta ariga maxaa kaa dhigay iyo meelaha dambe ilaahay soo ma ogid inuu leeyahay wasaabiquu ilaa maqfiratin aw tartanki soo lama rabo gabadhaana inay noqoto qofka ugu sarreeya ee farta lagu fiiqo oodayse faynus ka noqo narshidan ka noqo haddaadan noqon karin soo maha mugdi baad waa inay noqotaa faynuusta shidan ee qiimaha leh ee odayse ka noq ee ku dhex nool waa inay noqotaa jannadu darajooyin bay leedahay inna fi ljanna 100 daraja jannadu 100 darajo ayay leedahay acadda allahu lilmujaahidiina fi sabiilihi dadka waddada ilaahay ku jihaaday ayuu u diyaariyey kullu darajatayn laba darajo kasta waxay isku jiraan kamaa bayna asamaai waalard gabadhii odayse kula deganay haddii ba ilaahay janno ku siiyo laakiin kaa khayrka badnay samada saad u fiirinaysa ayaad fiirinaysaa meeshay ku nabantahay iyo meeshay joogto salaaday kaa badisay khayrkay kaa badisay weligaa gaari maysa
odaysa lagu kala tegi aakhiradana saasa lagu kala tegaya qofkii qur-aanka qofkii salaada qofkii xijaabka qofkii dikriga ilaahay qofkii qalbigiisu noolaa saas waa adduunkana kaaga horreeyey aakhiradana wuu kaa hormaraya jannada maxaan ku dhahaa beeraheed iyo webiyadeed miyaa lasoo kobi kara مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وبيوم متقنا هي جنة برقانة وما عسل ملبة صافئة وقوة خمراء ونقول والله وحي قلبك إنسان كسر على جنة الجديد والله ديارنا حتى وحال الشيء وبيده هي وحيالها بيرها قفك أهل الجنة ويكلي حنايا ولا شيء مسلم كاهن محاد مويسا شقالها جنة قوي شقين سهدي إلهي وي إذا رأيتم حسبتم لؤلؤا منثورا شقالها هي بوياس كجنة قوي شقين يهدي لؤلؤ دائما وكبر حنيا هذه السنة العادية حال يرقفكم مركو جنة قالوا wuxuu arkayaa booyaas iyo shaqaale u shaqeynaya quruxdooda markaasuu ku siganaya inuu sujuudo markaasuu leeyahay maxaa kugu dhacay markaasuu leeyahay malaa'ig soo mati war shaqaadan kuu ahay buu ku leeyahay adaaban kuu shaqeynaya adiguna waaba ii sujuudaysaa ka warran waa shaqaalaha baa saa laga dhigay adigii lagu shaqeynayay ee lagu khidmaynaysa ilaahay kuu qurxinaya kuu wanaajinaya dadku 33 sano ayay jiraan gabow ma jiro dhakhtar ma jiro cudur ma jiro xanuun ma jiro canbuuf ma jirto xumaan ma jirto wanaag rag iyo dumar ba qof jannada galay barwaaqa ilaahay siinaya tabaaraka wa tacaala laakiin waxaa hoogay qofkii jannada laga waayay walaashayda muslimka ah ma waysan ku farax gelinin ilaahay inuu ku karaameeyo oo jannada ku geeyo adduunka janna ku taalo qofkaan gelin jannada adduunka ilaahay u keenay tan aakhira ma geliyo jannada adduunka taalo waxa weey waa shariicada lagu dhaqmo war waxaa lagu yiri tuug ha noqon maxaa lagu dhig وحال من والدك حريري محال غودي خمر عبد هاني كذا نقول محال غودي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ربي آخرتك هذيكم الأيام محال قد عي خمر عبد توق هنقول هزينيسن هنقول قف متقنا والدك يقول حمان ودن بالك آخر ولا ليال الجنة بيرا أي كل حجر جيدك هركيس الجنة إلهي وكنت الله قف كفوشان فرس كأرض كبدن بقول سنة أيوم تقعنا هركيس أقص عني وهر أن دماني إلهي وسير وذل ممدود هر سعني وأن دماني ودير البدن أي الجنة كل حياة قرية وحاجرة ذهب كسم يسمع الجنة قرية هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام ذاتك أبوه الرأي جنة قال يا رسولك عليه الصلاة والسلام أيا أبوه الرأي الله فرأي جنة وحور رسولك عليه الصلاة والسلام إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حسن الحسين ورسولك أبوه لن يرد جنة أهل الجنة أوي خديجة أهل جنوي ما قرنيس واضح ركته قبلها سوبا القرآن كله شيء وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقبر مؤمنات يكوهس نولي قالك قول بكوهس نولي أريكاس ما السبب ودل إلهي إنك اللي حاج أريك مسلم باتها أبها ومسلم أو مسلم أو بيسيك ومسلم إلا نبي آدم قاسي مسلم باتها الغيار لكن ربها قال روح الغيار يقوى كان كسر إسلامي دانش أنا قاعد نمان دانش أبوي دينتي كو إسلامك أو ذكاب كاب إسلامك هدو أبتي السبب
وقال لكردك إلا هوس دك إلا جهنم أيو سيس عني إسقي بعد أنت كوجيري إسقي بعد ما تجمع كآخر بدنا قبل رسولك قال كابي كوس نوري آسيا اللي هذا إلهي سبحانه وتعالى أهل الجنة كامل إلهي أهل الجنة وكالي الكرام هدي آد قبل جد كم مرتي آد مرتي رسولك إلى الرجع قال لما يسترمي أو كمال يوانا جاري بعدين أنبياء رسول عليه الصلاة والسلام دمرك لكن أفر باب المؤسسات أفر أي أبو خير باب دمرك خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسولك خبير وانا جاي معروف يا خير رسولك دول استنى رسولك مرغ ما تابته الا ودول تاجت الهيكم هو جني الهيكم تسي خير معين بيوحي مid qof yalbaysa oo kaalmaysatan ugu wanaagsan bay gabadha su'aal waqtiyadii ummadda oo dhan rasuulku sida igu hartimi rasuulku ummadii loo soo mudku ku ah baabuurku hadii baabuurka wadadii kala u galo waa isku dhacaya mujtamaca wada khriban ayuu yiri waxaan qaytid faywa waxaan fokeed faywi waxaan waa lagu halaagsama ilmahi ay dhalaan beerkoodii bay aasay dadkaas loo soo diray markaas mujtamaci oo dhan la kooriyo gabadhaas baa isdul taagtay maalkeedii معنويا يحسن أي دول استاكت رسولك صلى الله عليه وسلم للأركن ميسي رسول الله إلهي لكو تسمى ويسر السينيس أيضا إلهي الجنة أي قليل تبارك وتعالى وكرامي مريم بنت عمران نبي عيسى هو يدي أفرت دمرك متى غنى أو خير بلان دمرك خديجة هي مريم هي آسية قبل أفراد نوحي هي فاطمة بنت محمد أفرتها يا دمك أبو خير بلان وحلو بان يا دمك هاونا سمولا على يارينا تقول ضيتان جنة نعمة أبوي قفك المسي ولا على يروح هوي إلهي وجهي سعد أكتي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة قيامها وجيه وإفيا ونوريا محي النوريا إلى ربها ناظرة ربي قد بإيجيس وجهك مركا والله قرحنا يا مارت نعمة أول جنة لجهله وإلهي ورالي كان نقضه إيوه ربك ومتى كان أركتدوي ولا لا يريا أهل الجنة ذلك أهل الجنة وبدنه وغفر بوخير سمي رسولك نوحي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ترددك قلي وصدح غيره ذو سلطان مقسط متصدق موفق من سلطان بقرة ملحوينة حتى قرقا يعطوه بغرض بطكت هداد المهر بالشيء حقه دي أدودتي وضيق حقي سي أدودتي أدوه حقي وقولها أدودتي بقرة دي ربات نين بقرة أو صدقة بها أو عدالة أمدكم معمولي أو خير كلا وافجيني كو ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم إيونين والبا أما قبر والبا أو قلبي رحمة كبر ذا إلهي مسيء قلنا عريسنا يمدوا البو قرابة يقف البو تقدر أو مسلمة وقفك لبعض الجنة كسدحات وعفيف متعفف ذو عيال يقف فقيرة هنتي أنا هين عيال إيوه ضد بلنا إلهي مسؤول قد لكن دوسا أن توكسني عفادوا لبن نوع بيكانتا دوسنات لبن نوع قفكو بشكا كدوسنات أو أنا وحبا ويديسن يقفكو دوسنانتا هما كدوسنات يفاحشة مركا لبداس معنا بوا كينيسا وأهل النار 5 رسول يقول أهل النار الشنوي الضعيف الذي لا زبر له متك ضعيف كأ آن ماركتي إيمان يا خير عن لهين عقلنا عن لهين والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان إيا متك خيانة بلن وحي كليتهي أنه آمني كريم أوريك خيانة ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك إيا النين
waagu ma baryiyo qoraxduna ma dhacayso ilaa maalkaaguu khiyaanaya ama reerkaagibuu khiyaanaya. rasuulku kadibna wuxuu sheegay bukliga iyo beenta ayuu sheegay. ibn mascuud wuxuu yihi radia allahu canhu, rasuulku wuxuu noo sameeyey khad buu noo sameeyey, khad dheer buu noo sameeyey, markaasuu yihi kaasu wadadii siraad mustaqiimkii wey. kadibna khadad yar ayuu geesaha ka sameeyey, wuxuu yihi shaydaan baa taagay. haddaba wadadii jannada ayaan hadda bilaabaynaa, waxyaalihii qofka muslimkaa gaarsiinaya. inta aanan tafsiil iyo si aad loo sharaxay aanaan u gelin, in yaroo kooban baan ka hormarinayna. kow, jannada dariiqa ugu horreeya uu ku gaarsiinaya walaashayda muslimkaah waxaa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah, muftaax daarusalaam atawxiid wey. jannada furaheedu waa tawxiidka ilaah oo la keliya, shirki iyo kufri oo laga fogaa. wahab ibnu munabbah oo dadkii hore ee salafka ka mid ahaa dadkii subanaa ayaa la weydiiyey, waxaa la yidhi alaysa miftaaxu ljannati laa ilaaha ila allah, furaha jannada lagu furo soo maha kamida tawxiidka qofku ku gelay? qaala balaa buu yihi ha, furaha jannada lagu galo waa tawxiidka, walaakin laysa min miftaaxin ilaa walahu asnaam, laakiin furo walba wuxuu leeyahay ilko yaryar buu leeyahay. fain atayta bimiftaaxin lahu asnaan futixa laka wailaa lam yuftax, haddaad la timaadid furo ilka leh jannadii waad gelaysaa, haddaad la timaadid furo aan ilka lahayn jannadii geli maysa. waa run, jannada furaheedu ilkuu leeyahay. ilkeed waa maxay? waa salaadii, waa soonkii, waa khayrkii la is amray, waa munkarkii la iska reebay. marka waxaa la rabaa furahaasuu jannada kugu furo inaad samaysid waxa rabbigaa uu ku amray. labo, wadada jannada lagu gaaro aliqbaal cala alqur'aan, qur-aankao qofku uu qaabilo, qur-aankao xoog uu ku bixiyo, barashada qur-aanka uu ku dadaalo. adiga qur-aanka xaggee kala taagantii? soo ma ogi qofkii qur-aanka ku dadaalo qur-aanka jannada inuu horseedayo, jannada meel kale ku geyn maayo. saddex, aliltizaam sharc allah tabaaraka wa tacala, qofkoo laazima shareecada islaamka aan ka bixin, qofkoon gaalo iska dhigdhigi, qofkoo diinta ilaahay aan ka tegi. arrinka ku xiga wadada jannada ku gaarsiinaya tadabbur qasas alambiyaa, ambiyada iyo dadka suuban qisooyinka iyo qur-aanka wuxuu ka sheegay adoo ku tadabbura, adoo fiiriya, si aad u ogaatid wadadii ay ku gaareen khayrka. afar, adducaa, baryada ilaahay. maxaa yeelay walaalayaal, baryadu waa hubka qofka muslimka mataqaanaa maaragta uu ku dagaalgalo. ma waadan arag waxa qur-aanka ka buuxa rabbana 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 rabbana? rasuulka soomada ducooyinka laga wariyey say u badan yihiin, ilaah buu tuugayaa rabbigii, hadda dembigiisii hore iyo kiisii dambena waa la dhaafay. haddaba ka waran marka, allahuma inii as'aluka aljanna wa acuudu bika min annaar. marka waxaa loo baahan yahay ilaahay in la baryo, waa dariiqa jannada lagu gaaro. dariiqa inta waxaan uga baxaynaa in kooban weeye. dariiqyo badan ayaa rasuulka xadiis ka sugnaatay. rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi, xadiis abu hureyra uu warinayo, dariiqa markii la sheegay walaalayaal dariiqu sahl ma aha haddii dhan laga fiiriyo. dhan haddii laga fiiriyana waa sahl, qofka ilahay u fududeeya jannada dariiqeeda. abu hureyra wuxuu yihi, rasuulku wuxuu yihi lamaa khalaqa allahu ljannata wannaar arsala jibriila ila aljanna. ilaahay jannadii naarta markuu abuuray, jibriil buu wuxuu u diray jannadii soo eeg. faqaala fanadara ilayha, jibriil jannadii buu soo arkay, wa ilaa maa acadta liahliha, iyo wuxuu ilaahay u diyaariyey. ilaahay baa wuxuu ku yihi jibriil, undur ilayha wa ilaa maa acdadtu liahliha fiiha, jannada soo eg iyo waxaan ku dhex diyaariyey, aan u diyaariyey dadka ahlu jannada noqon doono. qaala wuxuu yihi fajaa fanadara ilayha, jibriil jannadii buu soo eegay, wa ilaa maa acadda allahu liahliha fiiha, iyo jannada waxa ilaahay ugu diyaariyay dadka ahlu jannada ah. farajaca ilayhi, ilaah buu usoo noqday jibriil. qaala wuxuu yihi wacizatika, ilaahu sharafkaaga iyo cizadaadaan ku dhaartay, laa yasmacu biha axadun ilaa dakalaha,
qof jannada iyo wanaageeda maqlay ma jiro ilaa waa gelaya waan ku dadaalaya inuu galo fa amara biha ilaahay wuxuu amray jannadii in makaari iyo wixii la kahanayay lagu wareejiyo fa xuffat bilmakaari wixii la kahanayay baa jannadii lagu wareejiyo gabar odanse degan saacadday fiirinaysaa kulookin sigis waa 6:10 daqiiqo ama 6 salaada subax wey joodarigii iyo hurdadii ka kacaysa waqtigu waa winter dhaxan iyo qabow iyo baraf baa dhacay waa weysaysatay odansoo dhan waa laga hurda gabadha sidaa u dadaalaysa gabadha sidaa mataqaanaa ilaahay mataqaanaa qalbigeeda cabsidiisa ay ku beeran tahay waxa weeye makaarihdi iyo jannada wixii la kahanaya ilaahay ku wareejiyay si loo imtixaano dadkii gabadhaas mataqaanaa way ka gudbaysaa wadadii culays ka badnay jannadii u socota kadib makaarihdi iyo wixii la kahanaya jannadii markii lagu wareejiyay ayaa ilaahay wuxuu yiri orod soo eeg jibriil baa la amray hadan farajaca ilayhi faqala wa'izzatik laqad qiftu an la yadkhulaha ahad ilaahu waan kugu dhaartay sharafkaaga markaan arkay waxa lagu wareejiyay ee waxa aan la gudbin jannadaba aan la gelaynin waxaan ka baqay bil ahad ba uusan gelin kadibna waxa la yiri naartii soo eeg naartii buu u tegay markuu arkay naartii ayuu wuxuu yiri ayadoo qaar kale u cunaya naartii وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها قف ما مغلي النار أنا وأركي أو مركا أوقا وكعرر ياوي كدب نارتي وحلقوا ريجي وحي نفط أي جعلي نفط وحي جعشاي الدون كان يهودي لي وحاونا سنين إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي نفط بنا آدمكو وحا طبعي يدبع ضوءه إن أي جعشاي شيء أو نفسني waxay rabtaa weligeed inay iska hurdo waxay rabtaa inaan la oran waxaan waa ka xaaraan dhibbaha u ahaaday waxay rabtaa wax walba dhib ugu jiro anki naftii in loo fasaxay doonaysa naartii markii sidaa loogu wareejiyay naftu waxay jeclayd ayuu soo eegay jibriil wacizzatuka laqad khashiitu an laa yanjuu minha axadun ilaa dakhala ilaahow sharaftaadaan ku dhaartay waxaan ka baqay bi ruuxba inuusan ka badbaadin ilaa naarta inuu gala mooyaane markuu arkay wax lagu wareejiyay walaalayaal waxaan akrinayno ma aha history iyo taariikhda iyo tiifiyada waxaa laga sheega musalsalaadka iyo bini aadamku wuxuu isku gudgudbiyo waa qowlu nabiy sala allahu calayhi wasalam naarta waxaa ku wareegsan wax alla waxay naftu jeceshahay qofkiyo waxaa iska daaqaya ee waxaa ku dhegan ayaa markii dambe naarta u dalaqlaya soo maydna arag maantay dadka siiba meelahan ku nool soo maydnaan arag xaaladda lagu sugan yahay walaalaya odaas oo dhan haddii laga raadiyo gabadhu ay ka raadiso gabadhee maanta aad ku dayataa khayr aad uga dayataa heli mayso sida dadku diinta ilaahay uga fogay taa micneedu ma aha mujtamac oo dhan in la wada fogaaday qaar wanaagsan sida dadka hadda gabdhaha horteeda fadhiyo oo kale suuban way jiraan laakiin meeqaad ka tahay boqolkiiba meeqa percenti baad ka tahay mujtamacii ka boqolkiiba wax yar baad ka tahay sifir baa laga yidhi rasuulku wuxuu yidhi man laqiya allaha laa yushriku bihi shayan dakhala aljanna dariiqa jannada lagu galo wy bukhaari ayaa xadiiskaa wariyey qofkii ilaahay aan u sharig yeelin jannada ayuu gelaya man aamana billahi wa birasuulihi wa aqaama asalaa wa saama ramadaan kaana xaqan cala allahi an yudkhiluhu ljanna rawahu lbukhaari dariiqyadii iyo wadooyinkii baynu dadka u ishaaraynaa walaalayaal rasuulku wuxuu yidhi qofkii ilaahay rumeeya iyo rasuulkiisa salaada ooga sooma ilaahay waxaa dushiisa xaq ku ah qofkaa jannada inuu geliyo rasuulku wuxuu yidhi man banaa masjidan yabtaqi bihi wajha allah bana allahu mithlahu fi ljanna rawahu lbukhaari wadooyinka jannada sooma doonaysid qofkii masjid dhisa ilaahay dartii u dhisa ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa masaajidkaas oo kale lamid man salla albardayna dakhala aljanna rawahu lbukhaari qofkii waqtiyada labada qabow ee qabowga badan tukada jannada ayuu gelay hala isweydiiyo salaada subax ma tukataa waqtigeeda mar waxay tegaysaa korokonto waa aragteen waddanku su iskuba bedelay marna hoos bay usoo dhacaysaa dadka qaarkii shaqada iyo meesha ka shaqeeya ama iskuulka siiba gabdhaha yararka
iskuulka saacadda mobilka lagu buuxsanaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun salaada waa la isweydiinaya walaalayaal wadadii jannada ma doonaysaa salaadaada xifdi wallahi qof muslima salaad ma xifdiyo ilaa waa qof ahlu khayr haddaad aragtid gabar salaadu ay ku weyntahay gabadhaa waxaad u qirtaa qof ahlu khayr ayuu yahay haddaad aragtid gabar salaada aan qiimo agteeda ka lahayn markay doonto tukanaysa markay doonto mataqaanaa aan tukanayn qofka farta ku dhow qof halaag iyo hoog loo qadaray inuu yahay xaalkiisu ma sahlan man gadaa ila almasjidi waraxa cadda allahu lahu nuzla min aljanna kulamaa gadaa aw raax qofkii masaajid ka aada subaxdii ama galabkii waxaa loo diyaariyaa martiqaad ayaa jannada loogu diyaariya wadooyinkii jannada weeye walaalayaal rasuulku wuxuu yihi calayhi salaam man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna rawahu lbukhaariy yaa ii ballan qaadaya inuu xifdinayo inta u dhaxaysa labadiisa gar labada gar waxaa laga wadaa labada qal afkii baa udhexeeya carabkii yaa xifdinaya iyo inta udhaxaysa labada bawdood lugihiisa inta udhexaysa waa xubintii taranka yaa xifdinaya dhowrsanaan iyo carabkii iyo mataqaana dhan walba laga dhowrsanaayo jannadii waa lagu ballan qaaday adman lahu ljanna baa rasuulku yiri waxa ugu badan ee naarta lagu galaba waa carabka iyo mataqaana maaragti alfamu walfarju labadaasa ugu halis badan walaalayaal waxaa loo baahan yahay carabkaaga inaad xifdisid haddii kale waddo qalad ah ayaad raacsaa tii naartaad gelaysaa ma doonaysaa waddada jannada carabkaaga xifdi cid waxa ka sheegi cid waxba ha ku dhicin hadal wanaagsan dhe markaa ilaahay waddada jannada ayuu kuu fududeynaya jannadii baana gelaysaa rasuulku wuxuu yihi man sallaa ithnatay casharata rakcatan fi yawmin walaylatin bunya lahu bihina baytun fi ljanna qofkii 12 ragco oo sunnaa tukada maalinkii habeenka gudihiisa jannada waxaa looga dhisaa guri ayaa looga dhisaa wadadii jannada soo martid ku dadaal sunnooyinka ku dadaal man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna rawahu muslim qofkii wada qaada cilmi uu ku baranaya diinka qofkaas wadadii jannada ayaa ilaahay asna u fududeynaya man qaala mithla ma yaqulu almu'adhinu min qalbihi dakhala aljanna rawahu abu daa'uud qofkii markii adinka uu maqlo wuxuu leeyahay adinka ka daba dhaha qofkaasuna mataqaana jannada ayuu gelaya nuqdada ugu dambaysa wax qofku tusaale uu ka dhigtay nabi maxamed ambiyada ugu horeeya siba nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam tusaalaha ugu wanaagsan waa nabi maxamed bal siiradiisi iyo noloshiisi akhrisu u dadaali jiray isagoo loo dambi dhaafay ayuu haddana dadaali jiray oo cibaadaysan jiray oo dhowrsanaan jiray oo wanaag oo dhan ku dadaali jiray marka waxa weeye isaga noogu filan markaan qisaan kusoo koobaya nin la yidhahdo hishaam ibnu yaxya ayaa wuxuu yidhi waxaan ku waramayaa raafic ibnu cabdillahi nin la yidhahdo ayuu ku leeyahy xadiis iyo sheekan kuu sheegayaa sheekadaas anigu aan xaadir ahaa dhartooda ay maqasho ishayduna ay u jeeday buu yidhi qultu xadithnii yaa abalwaliid ii sheeg buu yidhi qaala wuxuu yihi ghazawnaa arda ruum waxaan duulaan ku aadnay buu yidhi dhulkaa ruum la yidhaahdo sanata 38 sanada hijrigu markay ahayd 308 wa kunaa rufqatun min ahli lbasra waddanka ciraaq magaalada basre la yidhahda dad ka wada yimid ayaan dagaalkaa ku wada jirnay oo muslimiina wa kunaa natanaawabu alkhidmata walxiraasa waxaan isku babedeli jirnay shaqada iyo raashin samaynta mujaahidiinta loo sameynayo iyo waardiyaha wa kaana macanaa rajulun yuqaalu lahu saciid ibnu alxaarif waxaan ugu dhex jiray nin la yihahda saciid wuxuu ahaa duu xadin min cibaadatin nin ilaahay u waafidiyey cibaado badan buu yidhi yasuumu nahaar wa yaquumu leyl maalinkiina waa soon habeenkiina waa salaatuleyl wa kunaa naxrisu calaa takfiifi nawba calayh lituuli qiyaamihi wa kasrati siyaami waxaan isku daynay markii waktigii uu ku yimaado dowrkiisii cunto samaynta iyo mataqaanaa arrimaha qaarkood diyaarintooda inaan ka khafiifino mataqaanaa salaadiisa badan iyo cibaadadiisa badan sababteed
فكان يأبى إلا بالقيام وديدي جر إلا أصب همينك ودنا واتاقي مالك ودنا واسومي أصو الصومة وسيدا همينك هنا تاقنا أيو ديدي هدنا خدمة دان كلاين وكتب وارو صلاة الليل هي الصوم إله كام غنقل أرميك لكا ضعيفين صلاة الليل خد دورين يسان ربنا اسكول كي كود دريسة معان قبلها إلمها لي أنك ضعيفين والصوم منها ما أنت وحما قرن كلا صومك إله ولا يمن كلا صوم وحال ربا في فرعونك السيني إلهي كوسي دويني أرمها لي أدونك عبادتها بخير كبدا ومد الدنيا آخر وحكو تاري السوي لما ربا الصوم متقانا والصوم منها قفك عديلي بهم يالفري ونغني وحو ربا شقوين كيسي واجبات كيسارنا ودم صوم كاينو كاكا بدور كاسو صوم ماها صحيح صوم صحيحة ومدك أكتف كالي هدي نقطة دراسة الدول هدي نقطة من آخر هدي نقطة مسؤوليات كسرنا وسير دقاقنا يا لوباهي إذا هذا إلهي كقارسين إيسا ردي هذا اللوباهي واديلي جريبوي فأدركتني بوي وإياه النوبة ذات ليلة أنا أستغيب هل نروح عن وصو بيرمي إن عن وقت جدك عن وقت منني أنا أين نقول وديبا بقرنا بير الرضا يضبط وكنا قد حاصرنا حسنا من حسون الروم وأنا اسكويا كاين نابوي ميلو فيسة أو عدوي قالوا يكون حجران فاستحصل علينا أرن كاسون علش نقول نقضي إن أي ماشي كسرنا فرأيت من سعيد في تلك الليلة هبينك وارديها أنا هين وحان كأركب يسعينك لي من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي دلقاتك هي عبادة هي وناق وحان كأركب وحن نفتي لي بأنه أحقر منافق بأن أسكو أكبر أنا جيب فلما أصبح الصباح وأبو مركب بريد هبينك نسيلا أتانا لم ينام مسيحنا معلمكين فقلت له وحان كويري خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنفط هذا نية وحق بك ولا لا خفيف عوغا والنبي صلى الله عليه وسلم رسولك نعوذ أكلفوا من العمل ما تطيقون عملك اسكو كلف واحد أول الذين أطلقون كذا فقال لي وحجر فيه طريق جنة سؤول تانية يا أخي إنما هي أنفاس تعد أرنك وحجر هوا متى سنكيغا كبحيسو او تيرا لا اغ ويرم امسان هوada nafti sankayga ay socon doonta qofka saad u maqlaysid hebel odaysu joog mar waxa maqlaysa waa geeriyo waa qasam maalin ay ku timaado koobka geerida maalin baa la ka banaya maxaa u diyaarsata maalinkaas marka wuxuu yiri arrin saa u fog ma habi wa umrun yafni wa imri soconaya buu yiri shalayto odaysa waxa timid 2000 ama 2000 ama kahor ama kadib baa timid waxaad u moodaa saddex maalin ay joogto waxaana maraysaa 15 sano ayaa taagantay meesha inuu saas u soconaya maxaad kordhisay quraanka ma xifdisay khayr badan ma samaysay bangiga daaniski iyo noordaya kaliya wax laguma gurtee ilaahay bunuugtiisa wax la dhigtaa salaad baa la tukadaa waqti qabow badan oo dadku aad isleedahay oo wax ka tukanaya lama arko maalintaas salaad baa loo istaagaa bangiga ilaahay wax dhiganaysa maalin ay dadku wada afurayn asleedahay baa la sooma waa bangiga ilaahay kayd adiga joog wala ilaahay wax agti la dhigtay lama waayo wala la yar la dadaalo ilaahay khayr kana waafajiyo sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sallam جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى وحمد برينا شيخين وميزانك حسناتك وقدره إننا ونغلب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه